waxaan ku talagalnay sanadkan inuu noqdo sanadkii ugu muhiimsanaa ee waxqabadka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo Amisom maadaama aan ognahay Amisom inay ku socoto dhabihii ay uga bixi lahayd aanu ula wareegi lahayn maxaan ku raadaa amniga dalkan si loo furi lahaa magaalooyinka waaweynka iyo jidadka la isku maro population centerska loo mari lahaa in aan xoreyno oo ay noqoto sanadkani marka ugu horeysa ee shacbiga Soomaaliyeed ay dareemaan guushii laga gaaray maxaan ku raadaa al-shabaab